السلام عليكم أصحابتي الغالية سو دبادة ولاشين مؤمنين ومركل سو نقطة ما شاء الله أصحابتي الغالية بين سلام يا دمانتي نبا ما شاء الله ما تحيدن لبضوا شكير وعجيبة إن عن عادي هنن قف بايقو عصدين نسو وذاقو ما شاء الله أنا بشيكوينكم وصادقو لكن قف بعد ياندن انستغرام كتكلا هدلين بايقو ده علشان قبل بيهيدا igu dhahda ana igu dhacda soo hadaadad kala wadaagtay maybe qof oo markaas xiligaas wadada ku socdo inuu ka soo naqaa laga yaabaa marka insha Allah waxay tiri la wadaag asxaabtaada ma sha Allah asxaabteeda kulligiin soo dhawaada haduu videogan ku soo gaar la wadaag asxaabtaada kale qaraabadaada share garee videoga like share and comment kulligood ma sha Allah waa dhiirigelin hadaad sii share gareysina dib kuguma han adiga qof kale walaalka inuu ka faa'iido laga yaabaa ma sha Allah marka waa kaas asxaabteena ad sheekadeena sii bilaabaneena ma sha Allah asxaabta marka gabadhan sheeko qisadeeda idin wado waxaan iska baranay Instagram-ka real life kuma arkin aniga ma sha Allah marka aniga waxaan iska baranay Instagram-ka فيديوهذا عن يوتيوب كي سو قلنا حاجة كشيء جراسته زي أصحاب تيدو أركان وقاعدين عن يوتيوب channel فرته ماشان معضان يوتيوب channel كي صوب وقدان ماشا سانكارك ويلسو هذا شو حيقول تري channel كاغ هاد دومي فرته هذيك أنا إذا عبار بعوض هذا لنا مركو حيقول تري قصة يقول عدان رباينا كوشاغو أصحاب هذا اللي وذاك سي مركا وشيء وحن كدانيغا channelkayga weli sheeko aan qof ka sheekeynaa maana soo gelinin marka way iga codsato waxay igu tiri ii soo sheegareen dadka laga yaabaa waxay tiri anigu igu dhacday qof kale hadaa u sheeg dadku u sheegtay oo sii sheegarayaan waxaa dhici karta qof markaas wadada ku socdo oo weli aan ku dhicin laakiin wadada raadka weli ku sii socdo ay ka istaajiso marka waa kaasa gabadha hadalkeeda waxay ku bilaawday waxay igu tiri nin baa jeclay oo ninkii aan jeclaa waxay tiri xaas buu qabay عشان family koogu hore u lahay ma sha Allah marka waxay dhahday aniga ku qanacsanaa cause waxay tiri waxaan aaminsanaa cause ragga Soomaalida muslimka waa aragteen afar nag bay la u banay ma sha Allah marka waxay tiri waxaad aaminsanaa tiri daaw mid oo kaligiis aroosab inuu aniga daba keenaa marka waxay sidoo tiri midkood dooqaaga galan iska aroos cause waxay tiri calafkana waa shay horta muhiim ah lama celi karo kaas marka waxay tiri markuu arooskii dhacay cideed intuusan arooskii dhicin ba waxay tiri khilaaf aad u weyn bay ka keeneen way diideen in arooskiis dhaco marka waxay dhaheen nin naag qabo oo faa'iido ku keenay malahan because ninkaas naag buu qabaa ilmo korinaya intuu ilmihiis korinaya adiga qof nolol cusub baa tahay waxaas gees ka dhig fahamteen marka waxay tiri anigana علشان واجعلay ninka waa diiday ugu dhahday cideedu way diideen in cideedu way ka soo horjeesteen tiri inaan ninkaas guursado hal ahad asxaabteeda qof irida ka soo furay irida la soo garaacay ma sha Allah marka gabadhu waxay ugu tiri reerka waxay tiri way ka dhaarteen waxay dhaheen tiri nin qabo door ilmood korinaayo waa laga fiican yahay faraha ka qaad waxay tiri marka aniga way diiday oo cideeda ugu go'ay asna wuxuu dhahay tiri naag iska dhaaf warkeeda ilaahay afar ii baneeye whatever adigna waa taqaanaa calafnish meesha ku jira waxay tiri waa isguur waa kaasa marka asxaabta gabadha marka waxay dhahday telefoon ay soo galeen but that's why video kala go'ay marka videoga hadoo eriyaha ku laba markuu soo qoraal ahaada marka waxay dhahday gabadha cida ay aniga is dagaalsan baa waxay tiri guurkayga dhacay cidan amaanaysiin waxay dhaheen tiri meeshu geynaa ha ku geeyo marka waxay dhahday wuxuu dhacday marka adiga waxay tiri marwadiis weyn baa Soomaali ku maqneede markay Soomaali jirto waxay tiri marka ninka muusan u sheegin ba inuu naag guursanayo iyo waxaas dhan uu muusan dhicin markay ka soo wareegto waxay tiri 3 bilood baa waxay dhahday naagti weyneed imaatay dad ba soo sheegeen waxa la yareeyay ninkaaga naag buu guursaday waxay tiri way imaatay markay magaalada imaatay way iswaa waashay waxay tiri meelaha dhan isku soo waashay guriga anagoo joogno tanagu maad waxay tiri dagaal
anigana waxay tiri qof afgaabana ahay weligay dagaalna ma gelinay tiri marka waxay tiri waa aamusa guriga markay qayle bilowday tiri dagaal bilowday guriga gadaal u galay dhahday dad badan baa la yaabeen oo waxay ku dhaheen tiri naagta maxaa ma ka cabsanaysaa anna waxaa ku dhahay tiri dagaalka waa laga fiican yahay beena maahan dagaalka waa laga fiican yahay marka waxay ugu dhahdeen marka warka meesha maraayo waxay dhahdeen cidii dadkii familkiisa isku imaadeen kale waxay tiri aniga familkeyga meesha ma imaanayaan oo waxay tiri ninkan dhaafinay dhaheen aniga waxay tiri soo raacay marka wuxuu dhahay markii familkiisa maal soo wada fadhiistaa waxaa la dhahay tiri naaga 2 bilood qabtay naagtan kale loo furi maayo waa fahamtaa umaleena marka asxaabteeda waxaa leedahay naaga 2 bilood iyo wax la mid ah qabtay furi maysi naag oo inta silmo ku hayso maasha Allah ilmahaaga hayso ilmahaaga hooyadood whatever waxay tiri naadartaada waxaa adiga waa iska taqaana shuquladayaal isku imaadeen waxaa la tiri marwada weyn imida yar mid hadda soo gashay reer dhan oo dhisnaayo inta sano dhisnaa in loo dumiyo maaha waxay tiri meeshan furin wuxuu ka dhacay tiri oo caadi ahayn oo in aniga leegu furo banaadka kana loo faatixeeyo marka waxay tiri wiji oo waalidkay ugu noqdana malahan waxay tiri waalidkeygana waxay dhaheen tiri aniga ha nagu soo noqonin xataa meesha anaka deganahay hana imaanin dhaheen tiri hano imaanin xaafada ebel waxay tiri inta la guursanin oo ninkaas aan raacin aadagnin xataa way ka guureen tiri hooyaday laba walaaladay iyo waxay tiri 4 gabdho aheena iyo 2 wiil hooy aabo marka aniga intooda kale waxay dhahay xaafad kale degan waxaan dhahay xaafada deganah agaarkeeda xataa isku imaanin waxay tiri marka aad ba ula dhaca waxay tiri xanuun weyn ka qaad waxay tiri intana ma jirti ninkii waxay tiri shalareerkii uga soo go'ayna markii cidiis wixii soo go'aamay wuxuu dhahay tiri ilmaheyga ma wada cid la ku daaya hadii naagta ay fur dhahdo naag la furo ilmaheeda adeer le noo noqonaa ilmaheyga maana ka war haynaayo camal adaa fiican oo dhahay ani aad walaalaana shal walaala aheena waa ku jecla maanta ku jecla laakiin familkiya keena xoda marka furtiig wax ka fiican mal in lagu furo waa ka fura cid ana kula soo maslaxeena hadaa aragti waxay tiri aabahay hooyadeen way ka dhaarteen waxay dhaheen tiri xataa xaafada deganahay agaarkeen iska dhaaf xaafada deganahay xataa isku imaanin gurigeena soo gash iska dhaaf waxay tiri stresska dibka aad u weyn intuu qabsade waxay anoo kaliya isla hadlaaya janjaro ka soo dhacay waxay halka shay oo bisdahay tiri bal nafa ka dhiganaysayo wehelo ku noqona markaas waxay tiri oo adiga 2 bilood dhameena lahay waxay tiri janjarada ka soo dhacay ilmihii waa soo halaabeen marka janjarada soo dhacay waxay tiri asxaabahay mid kamid ah ninkii wacay waxay ku tiri saasa dhacday isbitaalku imaaday tiri biilkii wixii uu didiibay wuxuu dhahay tiri marka walaale hadii ilmihii aanba isdhahayo bal daba soconaagta xataa bal cidi xataa la soo heshiiyo oo bal reerka waxa dhahda naagta u reelada hadaba ilmihii ka soo daateen ani aad wuxuu dhahay tiri xataa telefoonka iga soo bacana kaas wuxuu dhahay ani adiga ebel buu waase ka fure cideed marka soo go'aamin halka xiriir ani aad dhexdeena yaacno wuu gooyay cunugaas hadaba soo asoona adduunka imaanin oo soo dhamaade calooshaada ka soo baxay bis waay marka waxay tiri haddadan wax ka soo wareegatay muddo 1 sano ah waxay tiri waa shaqaystaa Nairobi geeska jooga marka waxay dhahday dad badan waxaan rabaa inaan kala taliyo oo san ku dhicin maxaa la dhahaa tan oo kale cidaada haduu naag qabo iyo haduusan qabinbo waalidkaaga waxay og yihiin meeshii adiga ku fiican meel ku fiican oo adiga isdhahay gabadha mustaqbalkeeda ku dhismaayo kaama soo jeedinayaan waa fahamteen oo maleena asxaabteeda marka waxay ugu dhahday dadka kugu xiran gabdhaha ku inay kugu xirnaadaan macquul ah mise dad waaweyn dadkaas oo kale gabdhaha guriga u joogan waxay tiri la wadaag sheekadan u sheeg aada looga fiican yahay waalidkiina warkooda diiday waxay tiri waa qasaaro been maaha taas aad ugu qasaaraysa waalidkaaga meel xun kuuma leexinaa oo meel wanaagsan kaama soo leexinaa marka waxay ugu tiri intaas u sheeg adigana ra'yigaaga ku darso aniga ra'y ahaanteeda waxaa dhihi lahaa ninka naag ha qabo misyuusan qabin waxay waalidka ku dhaheen ma rabno aan meesha ku jirto haddii ogyihiin inuu qofkaas qof fiican yahay oo adiga laazim maahan qofkiina dabeecadiisa ay yaqaanaan waa qof dadka waaweyn oo kale qofka markay arkaan behaviorkiisa iyo wixiisa haddii ku dhahaan ma rabno waa faraha laga qaadaa koos waalidkaaga aday intaas kusoo dhansiiye intaas sana kusoo haayeen marka
uma maleynaa inay wax shay xun kugu aadinayaan. hadda anigoo kale waalida ahay maanta maasha allah wiilkeyga ii joogo lagama yaabo inaa wado xun oo dhaho wadadan mar taan kasoo leexo. sidoo kale dadka gabdhaha haystoo kalena waa saasoo kale qof oo wiilkii hadda anigoo qof weyna xataa waalidkeyga joogo maasha allah lagama yaabo inay dhahaan inta kasoo leexo meeshan wadadan inta kale xadid tan raac. waa fahamteen. marka waxaa dhihi lahaa dhammaan dad badan hadda waxaa jira wadooyinkaas ku socdo oo waalidkooda markay dhahaan qofkan iska dhaaf oo raaca aada loogu wanaagsan yahay. qofka meel cidlo kaa hela hadhow meel cidlo kaaga tagaa. laakiin markuu intuu ciddaada u imaado ciddaada sharfo ciddaada kaasoo baryo dha gabadhiina u baahanahay si sharaf leh ducali lagugu daro meel cidlo kuguma dee kar cid dhan adiga kugu soo aaminta asiga. waa fahamteen oo maleena asxaabteeda qaaliga marka aada looga fiican yahay gabdhaha hadda soo baxay aada ugu digtoonaadaan qofkii lagu yiraahdo maya iska dhaaf. adduunka dad badanaa jooga waalidkaaga waxay qofka maya ku dhaheen ku jirto waa la isweydiiyaa marmar markaa aqligaaga isticmaasheen. aqliga hadduu kugu yaryahay xataa aqliga inta yar oo asi aad ku aragtaa lagu isticmaalaa oo waxaa la dhahaa bal maxay maya u dhaheen reasonka waa laga daba tagaa waa lasoo ogaadaa waay ee maya u dhaheen cidda maxaa dhacay maxaa keeni karo maahan haddaa dhahdiyo cidda may dhaheen aniga dooqayga keligay ka dhigla. qofkii wada cidla laga helo wada cidla looga tagaa meesha shalay kaa helo lagu dhahaa bax banaankan u bax. waa ujeedin gabadhan wax kasto aroos u dhigay guri u dhigay dahab u dhigay maxay u tartay markii cid la isku imaaday. hadda maanta cid oo reerkeeda oo reerka wiilka faamilkiisa ah haddii intay soo baxaan gabadha faamilkeeda u imaadaan cidda gabadha intay u imaadaan oo maxaa la dhahaa ay dhahaan gabadhiina rabnaa wiilkiina ku darsana si sharaf leh loo soo siiyo meesan ku go'aamiyeen inay gabadha yar la furo. waxay dhihi lahaayeen xalay soo raadi lahaayeen something like maseertiro kar waxaas waxay soomaalida dhahaan hala siiyo mise adiga marwada weyna xal loo keeni lahaay adiga un xalay keeni lahaayeen leh just like furo laguma soo degdegeen. waa ujeedeen marka asxaabteeda qaaliga sheekada marka gabadha magaceeda ii sheegin ku tiri waxaan ku dhahay instagramkaaga si dadka ula wadaagti ma soo dhex dhigaa wuxuu igu jira maya ma rabo cause dad yani yaqaanaana laga yaabaa inay dhex arkaan mise dad oo way badan yihiin dad oo qofka nacab qofkan qof ku farxay jabkiisa jiro oo hadda markaa sheego kare dadka markay fiirsadaan ku qoslo dhaca maybe one day gabar had ka xasuusta saas ku dhacday ma waa laga fiican yahay hadda adiga ninta oo kale gabadha dhali kartaa way kula dhalatay way ku dhashay way ku dhici kartaa. marka waxaa fiican inuu haddii qof aragti saasoo kale waxaas ku dhaceen waa loo duceeyaa waxaa la dhahaa moogtahay niyadda lagama dilo waxaa la tusiyaa aniga hadda cabaar dhan baa la hadlaa waxaa ku dhahay niyaddaas katirna ku dhahay shaqeyso qof inaa u baahataa isku dayin markastana waxaa ku dhahay waalidkaaga waalid waaye way xanaaqayaan ku dhahay laakiin kuma goynayaan markasta wac isku dayna xiriirsa xataa telefoonka kugu dimiyaan but wac anytime wac subaxdii oo kale wac hay xaaladina ka wala kuma baahna telefoonka kugu dimna then biiris wax marka dambe waxa ku dhawaalid waa way ku dhaleen intaasna ku soo kornaa wadacda kaaga matagana ku dhahay nin shal ku barta iyo dad shal ku bartaan ma ahan waa waalidkaaga ku dhalay hooyadaada 9 bilood caloosh kugu soo waday foosho xanuunka badan kula soo martay intaas in ka badan haddana kusoo xambaarsaneed kusoo nuujinaysa soo wadacda kaaga matagaysa ku dhahay inkastoo hooyo aaba markii la yiraahdo hooyo ay jilacsantaa waxaan ku yiri markaas isku day inaan labadooda wacdi qof martoo kadis wacdi ku dhahay adduunyada hadda horumar la gaaray qof lambarkeeda haysta waxaan ku yiri wax kastuba walaalaha isku day ku dhina xiriirisi waxa isku day bal tusiyaan ku dhahay inaad inaad calaashan lugaha ku istaagi kartiyo kale inaad wixii hore ka qoomameynaysi qalad moogta wuu dhacaa mistake it happens wuu dhacaa qalad qof aan gelma lahaan ma qaldamo waa la bilaadan haddii la yahay waa la wada qaldamaa marka asxaabteeda intaasuu videogeena ku egyahay maasha allah gabadhaanaan iga codsad inaan soo dhigo video waa aragteen youtube channelkeyga waxaasoo kale iyo sheeko waxaas iguma jirto dad badan baa igu dhaheen waa sheekooyinka dadka ay kusoo dhiibaan waa laga dhex sheegaa maasha allah faa'iido yeelane maasha allah aniga waa jeclahay walaalaheyga tiin waxaa adiga idinka faa'iido idinka soo galayso haba yaraatee wax yar wax faa'iido idinka soo galayso in aniga nii suubiyo maasha allah
intaan videogeena ku eg yahay insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaantiina inaad videoga wada sheegareysin adiga haddaysan dhibkaas ku haysanin mise wadadaas aadan ku soconin qof baa ku socda marka mise jiiraankaaga ahaad mise qaraabo ahaatiin markaad sheegareysid videoga dhammaan way wada arkayaan waa la wada markay arkaan qofkii wadadaas ku socdo qoomeynta gabadhana qoomeynayso ka arki doona insha Allah asina wadada marka uu ku socdo talaabada gadaal u soo cishan doona insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaan tiinaba inaad ka wada faa'iideen maasha Allah ana sheekada markii ii sheegaysay cad baa u calool xumooday caloosha kala soo kisto dadka kalena wax yar ka jilcana u moodaa maasha Allah wax kasta way dhacaan wax qoraal alla waa waxa dhicay waxa qorneyn ma dhacaan markii hooyada waa u sheegay waxa ku dhahay marka hooyada caloosha ku jirta waxa dhan lagu qoray ha u bixina ku dhahay marka xaaliya dunya waa kan marka asxaabteeda insha Allah awoodo duceeno walaasheena inuu qalbigeed Ilaahay u qaboojiyo because aad u qoomeynaysa wixii sidii shalay ahayd waalidkeed u tugtuugayeen waalidkeed uga soo goday aad bay xun tahay nin bil aadan inaa waalid uga soo goday nin daniista weynaado waay ma wada ahaan kulligood inay wada yihiin but mostly kuwa ugu badan boqolkiiba 98 markii 100 meel la xiro waa 2 qof ka soo baxayso oo Ilaahay wanaajiyo laakiin intooda badankooda lugooyo ka wada suubsanyiin waa dareenteen umaleena intaas asxaabteeda qaaliga ah khayr badan ay idin rajeynaa dhammaantiinaba walaashin mu'min waaye waa u jeedin maasha Allah maad sheekabina cajiib ah inaba aan caadi ahayn cajiib ah maasha Allah qalbiga taabanayso waay insha Allah marka asxaabteeda haddaa channelkayga ku cusub tahay subscribe ka saar waa bilaash like share and comment see you next video asxaabteeda